وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aynu iska sii bilaabano casharkeeni labaad maanta aynu halka ka sii wadno casharkeeni koobaad wuxuu inoogu jeegay erey bixinta miisaanka maansada marka erey bixintu uma barti ka sii wadi doonaa waxaan isla soo garanay ereyga tuduc baynu maalinta markii hore isla soo garanay waxaan sidoo kale isla soo garanay ereyga la yiraahdo alanku muxuu ahaa alanku wuxuu ahaa waa qurubyada dhawaaq ee erey ka kooban yahay qurubyada dhawaaq ee erey ka kooban yahay taas waxa la odhanayay maxay alan waxaan doonaynaa inaan isla fahamno meesha imka ereyga la yiraahdo shaqal isaguna wuxuu ka mid yahay erey bixinta aynu aad ka adeegsan doonaa ayuu ka mid yahay shaqal marka la joogo dhinacan marka la joogo wuxuu yahay waxa weeyaan waa cod sameeye ereyga af Soomaaliga waxa codka u sameeyaa waxa weeyaan waa shaqalka haddii aanu shaqalku ku jirin meesha ma jirto haba yaraatee cod lagu dhawaaqi karaa tusaale ahaan haddii aan halka taa ku qoro haddaan taa ku qoro markaan ereyga doonayna inaan xarafka markaan doonayo markaan inaan ku dhawaaqo waa inaan raaciyaa maxay ta saasay u qormaysaa laakiin xarafka soo qallalano barta taagan dhawaaq ma laha isagu waxa weeyaan waa astaantii cod soo bixineed weeyaan waa astaantii cod soo bixineed laakiin kani ka codka u sameeynaya waa maxay waa shaqalkii abaad oran kartaa ta abay markaan noqonaysa ama waxaad oran kartaa maxay te ama waxaad oran kartaa ti ama waxaad oran kartaa to ama waxaad oran kartaa tu ama inta soo maxay dheer baad raacin kartaa ayaad raacsan kartaa marka waxa la yiraahdaa shaqalka miisaanka maansada waxa markaan joogno waxa ugu badan inuu adeegsanana waxa weeyaan waa shaqal waxa ugu badan saameynta inagu lahi waa maxay waa shaqal waaye marka shaqal macnaheedu waxa weeyaan maxay waa cod sameeyaha afka Soomaaliga waa cod sameeyaha afka Soomaaliga waxaan u baahanahay inaynu fahamno sidoo kale ereyga la yiraahdo maxay xudin ama dadka qaar kood waxay yiraahdaan xudun ereygaas aynu u baahannahay inaynu fahamno markaynu miisaanka maasada joogno ereyga la yiraahdo xudin waa shaqalka ama shaqalada dheelitira meeriska maasada ah waa shaqalka ama shaqalade shaqalo dheelitira maxay waa shaqal ama shaqalo dheelitira miisaanka maansada meeriska maansada aan raado meeriska maansada وكا تاسا waxa la yiraahdaa maxay xudin ama xudun labada hadba sidii loo yaqaan intaasi waa erey bixinta afka waa erey bixinta miisaanka maansada waxaan imika doonaynaa inaynu gallo aynu si fahamno laba qodob aynu si doonaynaa inaynu fahamno af-Soomaaliga waxaynu ogsoonahay sida caadiga wuxuu ka kooban yahay maxay 22 shibane كوبيلات شبنا إياه طبعا محي شقل طبعا شقل طبعا كشقل وشن جاجابن يشن ها نادر ويا كوبي الله بعتان كشبناها طبعا لبا حرف كميت أيام مركز قاركود وحلقوا تريا محي
waxaa lagu tiriyaa shaqalkii baa lagu tiriyaa shaqalada 21 kan xaraf marka miisaanka maasada la joogo 21 kan xaraf laba xaraf oo kamid ah ayaa waxaa lagu tiriyaa mararka qaar kood shaqalada sida loogu tiriyaa aynu dur taagna marka waa kan labada xaraf ee loo yaqaano ya wa iyo ya labada xaraf ee loo yaqaano intaas mararka qaar kood waxaa lagu tiriyaa maxay waxaa lagu tiriyaa shaqalada goorma lagu tiriyaa taba 6 siyood bay ku iman kartaa labada eri 6 siyood bay af Soomaaliga ku iman karaan 6daas siyood ay ku iman karaan saddex kamid ah waash xarafkoodii caadiga ahaa ee shibanaha hal marna xaraf caadiyana maaha oo shaqal laga dhigi kari maayo shibana laga dhigi kari maayo cilad meesha taala laba qodob laba jeer oo kaliya laba mar ayaa waxay noqdaan shaqal bay noqdaan goormay labada mar waa maxay tahay tusaalahan marka koobaad tawa xarafka wa hadii shaqal ka horeeyo shaqal haduu ka horeeyo ama ha dheeraado ama ha gaabtay haduu shaqal ka horeeyo ay ku xigaan wa iyo ya midkood shibanana ka dambeeyo waxa laga dhigaa oo noqdaan shaqal waa hadii loo baahdo oo loo baahan yahay shaqal bay markaa noqonayaan haddaan loo baahnayn waa la iskaga tagayaa waa caadi laakiin hadii loo baahan yahay shaqal bay noqonayaan tusaale maxaa ku ah tusaale waxa tusaale ku ah tusaalahan awl marka leedahay waxa tusaale ku ah awr marka leedahay waxa tusaale ku ah marka leedahay maxay weyl okay intaasba waxaad arkaysaa maxay inuu shaqala ka horeeyo shibanana ka dambeeyo mararka noocaas oo kala ah xarafkaas wuxuu noqdaa maxay labada xaraf waxay noqdaan waada iyo yaad waxay noqdaan shaqal bay noqdaan qodobka labaad waxa weeyaan waa haduu shaqal ka horeeyo shaqalkaas waxa qasab ah marka labaad inaanu shaqal dheer ahayn waa inuu shaqal gaab noqdaa haduu shaqal dheer ka horeeyo way ka baxaysaa meesha qodobka labaad mooyaan waayo ee qodobka koobaad mooyaan shaqalkan hadaba inuu shaqal ka horeeyo kow wa iyo ya midkood ku xigo haye waxbana ayna ka dambeyn markaana maxay noqdaan shaqal bay noqdaan maxaa tusaale inoo ah tusaale waxa inoo ah tusaale inaad tirahdid eriga helay eriga helay waxa ka horeeya shaqal yaaba ku xigtaa waxbana kama dambeeyaan markaas oo kalena waa maxay baan ku yiri waa maxay waa marka labaad ay noqon karto shaqalka ay noqon karto ereyada la midka ah ee noocaas oo kala oo dhan ayaa inta tusaalahan dilay markaad leedahay kale dilay waxaad arkaysaa maxay inuu shaqal ka horeeyo yaadina ay ku xigto waxbana aanay ka tamin tusaalayaasha la midka ah labada jeerba shaqal bay noqdaan marka miisaanka maasada markaynu u baahan aynu joogno mararka qaar kood ba tiradii la inooga baahnaa meeriska maasada looga baahnaa ay wax ka dhinaanayaan kadib sababta uga dhinaanaya wax kala ma aha waxa weeyaan maxay waa iyo midkood ba ku jira markaas waxa lagu darsanayaa iyaga marka lagu darsano miisaankii buuxsanaya iyaga marka lagu darsado miisaankii buuxsanaya waa yahay
halkaas in ka sii wadi doonaa insha Allah ta'ala mar saddexaad intii hawadu ku kulmi doono waxaan idinka tagayaa. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.